السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada asxaabtada qaaliga ah oo igu xiran channelkayga musaafiriina asxaabi soo dhawaada kusoo dhawaada gacmo furan weji furan qalbi furan kusoo dhawaada asxaabtada qaaliga maanta waxaan rabaa inaan sameeyo ama aan kariyo suugo canjeelo Ethiopian maasha Allah aad u qurux badan asxaabi waxaan filayaa inaad ka heli doontaan hadda halkaa waxaan kusoo diyaarsaday ama aan kusoo jarjaray basasha aan rabay inaan ka sameeyo suugada ku kariyo oo si yar usoo jarjaray oo qiyaasa qofka isaga diyaarsanaya inta ku filan iyo inta uu karinayo canjeerada ku filan isaga diyaarsanaya jaranaya aniga hadda basasha waan soo qiyaasay waan soo jaray si yar oo maasha Allah qurux badan soo jaray haddana waxaa ii saaran digsiga dabka aan ku karin lahaa asxaab waa ila soconaysaa insha Allah soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada asxaabta qaaliga maasha Allah digsiga hadda soo saaray basasha ma hadda ku daray waa u jeedaan basasha hadda wax saliida kama hormarin qof hadduu jecel yahay waa ka hormarsan karaa saliida basasha ka hor ku dari karaa ku karin karaa anigu laakiin waxaan rabaa markaan basasha si fiican ay isku soo dhexdhacdo oo ay is dhex gasho kadib ayaan rabaa inaan ku daro hadii Ilaahay idmo asxaabi hadda waxaan rabaa inaan walaaqo maasha Allah si fiican baan rabaa inaan walaaqo basashan waxay fiican tahay marka basasha kaliya ay tahay aan saliid iyo waxba lahayn walaaqa inaan laga joojin baa fiican haddii kale digsiga ku dhagaysaa asxaabi waa u jeedaan weli waa walaaqaynaa basasha waxaa fiican si fiican u soo walaaqdo ama u soo labtid haddaa ka kor tagtid digsiga waa ku dhagaysaa way gubanaysaa ma fiicna qofku inuu kor dhaaqo basasha aan suugada canjeelo Ethiopian ka sameynayo cabaarkan saana ku soo wadana haddii Ilaahay idmo saana ku soo wadanaa waan isku soo laaban doonaa insha Allah asxaabta qaaliga hadda waa ku soo laabanay hadda waxaan rabaa inaan ku daro toon aan si yar u soo jarjaray toontan hadda waan soo jarjaray asxaabi ma soo tumin marka hadduusan qofku saan jeclayna waxaa fiican inuu iska tumo oo iyadoo tumo ku darsado marka hadda anigu waa soo jarjaray asxaabi hadda waxaa kaloo ku darayaa barbarooniga shiidan baan rabaa inaan ku daro basbaas kuma karinayo laakiin waxaan rabaa inaan basbaas gooni u samaysto hadda waxaan ku darayaa barbarooniga shiidan la yiraahdo paprika ciyaalkan qaar jeclayn basbaaska marka basbaas gooni u samaysanaya insha Allah hadda waan walaaqayaa walaaq waa soconaya cabaarkan ilaa inta ka dhamaanayso walaaqasan kusoo wadana haddii Rabbi idmo asxaabi waxaan rabaa oo kale inaan ku daro yaay shiishid yaayada shiidan ama tamaandho qofka u yaqaano asxaabi anu tanaan ku karinayaa qof laakiin khasama tan oo kale inuu raadiyo waxaa fiican tuu markaa haysto inuu ku darsado ama agtiisa taalla anu tanaan ku darayo waa yaayada ku jira gasaca waa walaaqaynaa walaaqan kusoo wadanaa ilaa inta diyaar ka noqonayso insha Allah asxaabi waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan soo dhawaada saasaan kusoo wadana haddii Ilaahay idmo waa u jeedaan hadda waa wadnaa weli waxaan hadda ku darayaa saliid baan hadda kusoo darayaa haddii Rabbi idmo saliidda marka hore kuma darin hadda dib baan kaga darayaa waa u jeedaan si fiican baan rabaa inaan usoo walaaqo si isu dhex gasho oo si maasha Allah ay usoo baxdo hadda waxoogaa yaraan dabooleynaa kadib aan kusoo laabaynaa haddii Rabbi idmo asxaabi saana kusoo baxday maasha Allah quruxdaas 10 daqiiqo camal aan daboolay isku soo walaaqo u jeedaa hadda waxaan ku darnaa waxyaabo kale carfiska aan ku darnaa haddii Rabbi idmo waan ku carfin lahayn suugada asxaabta waxaan ku daray wax weeye xawaaji weeye xawaajigan aan sameeyay guriga ku samaystay xawaaji isku dar weeye waxaan kaloo ku daray haddii Rabbi idmo maraq digaag ama maraq jumbe qofka u yaqaano qofkan jeclayna waa iska reebi karaa khasama inuu isticmaalo waa walaaqayna hadda wax yar kadib haddii Ilaahay idmo si fiican baan rabaa inay isu dhex gasho asxaabi hadda waxaa kaloo ku darayaa maraq digaag kalaan ku darayaa wax yar oo kale maraq digaag aan ku darayaa maraq digaag shiidan oo balbaraha ah iyo waxaan ku darayaa cusbo yar asxaabi video wada ka hesheen share gareeya like saara asxaabta kale u share gareeya subscribe ka naga hilmaaminina asxaabta qaaliga aad iyo aad baan ku mahad celinayna daawashadiina asxaabi hadda waxaan kaloo ku darayaa hadda si fiican markaan usoo walaaqo kadib waxaan ku darayaa hilibkii oo diyaarsan maasha Allah hilibku waa kan asxaabi biyaan kusoo kariyay hilib caadi weeye aan soo jarjaray soo kariyay
marka kalena asxaabay lama wadaagin sidaan ku soo baxay maasha Allah hadda waan isku daray waan isku walaaqayaa waan isku daboolayaa haddii Rabbi idmo xoogaa kadib aan kusoo noqonaa insha Allah asxaabatan suugada maasha Allah quruxdiisa kusoo baxday waa ujeedaan weli walaaqayaan ku wadnaa quruxdiisa kusoo baxday maasha Allah kusoo baxday waa ujeedaan idina idin macalina asxaab maasha Allah suugada waa tasaana kusoo baxday ujeedaan kusoo baxday kalarka quruxda badan bay kusoo baxday guduudka waana diyaar hadda wax kale oo dhiman ma jiraan waana ka dajinaa haddii Rabbi idmo hadda waxaan ku darayaa asxaabay oo kaliya u dhiman kun aan gooni u soo kariyay markaa karinaya asxaabay idinlama wadaagin laakiin sabii caadi aan ku soo kariyay ukun qof kasta waa garanaysa loo kariyo ukuntaan hadda ku daray insha Allah waa isku walaaqayaa waxoogaa yaraan isku rabaa inaan isku daboolo si isugu hurto waana diyaarinaynaa insha Allah wax hadda kale oo dhiman ma jiraan waa ka dajinaynaa waana diyaarinayaa asxaabteena qaaliga soo dhawaada insha Allah ما شاء الله أصحابتنا قالوا صانع كصوب حذر كان سودي ياري عن شيلة السوقدي وأوجدنا أصحابي سيك صوب حذي ما شاء الله قروح سحن كانوا كسودي يارشي أصحابي هالكان يحب حصار والسوقدي وكنتي وحنا وديقر أن سكري هالكان كلنا وحصار وبدرود يبربنوني لنا كلنا وحصار أصحاب السلر ويا يبرد أن سكري ما شاء الله كابج أصحاب قالوا وأوجدنا صحن كسيد قروح بدنا كصوب حي عن شيلة توبيان ما شاء الله أصحابتهم في لنا كهشين أصحابي فيديو شير قراية أصحابتنا شفت محل ليا أصحابي إن الشوك وعصبنا محل ليا قاعد مفرق سود وهذا فيديو دنبع عصب يسقط الله بشونا أحسن وحديث يا صلاة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.